السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا تفسير كسورة فيل. سورة فيل آياده واشن آيادود وحين كسو دكتي مكة. سورة دا وحيكاها ليسا قصة عذي النبي صلى الله عليه وسلم سنة كأولا شيء. قصة داس او اهد ننك اهانجري قدومية ودنك يمن oo la dhihi jiray Abraha bin Ashram baa wuxuu dhisay kaniisad aad u weyn si uu ugu qanciyo boqorka Xabasha. Markaas wuxuu damacsanaa in Quraysh iyo Carabtu guud oo u xajinaysa dhankaasi Kacbada inay u soo xajiyaan kaniisadan xaggeeda. Arrinta markay maqleen Carab waxaa istaagay nin ayaga ka mid ah wuxuuna aaday kaniisadda xaggeedii kadib uu kaniisadda ku dhex saxarooday darbiyadana wuxuu maray saxaradii. Markay subaxda la soo kacay arrintii la ogaaday buu Abraha arrinta ka xanaaqay. Arrinta markuu ka xanaaqay wuxuu go'aansaday inuu weerar ku qaado dhankaas iyo Kacbada uuna burburiyo. Markuu arrinkaas go'aansaday buu wuxuu samaystay ciidan aad u fara badan oo uu ku jiro maroodi. Suuraddana magaca halkaas bay ka heshay. Markuu arrinkaas go'aansaday inuu Kacbada weeraro ah oo dhankaas iyo soo aaday jasiiratul Carab baa waxaa isku dayay rag qabiilada u talin jiray inay digaal la galaan ay ka difaacaan Kacbada. Markay isku dayeen arrinkaas digaal buu la galay, gacantu ku soo dhigay, ciidankuna ku soo darsaday. Markuu soo dhawaaday xaramkan u soo dhawaaday geelu iska lahaa Cabdimuttalib buu qaatay. Geel Cabdimuttalib iska lahaa markuu qaatay buu Cabdimuttalib wuxuu ku yiri geelayga ii soo celi. Markaas wuxuu ku yiri maxaa maanta ma difaacaysiin miya Kacbada? Markaas wuxuu ku yiri geelaha anaa iska leh, rabbiga Kacbada iska leh asaga difaacanaya ee geelahaygiisii. Xilligaasna waxaa lagu amray Quraysh inay buuraha dushooda fuulaan ayagoo markaas aaminsanaa in Kacbadan rabbiga iska lahaa uu ilaashanayo. Markaas qisadaas waxay u dhacday Allah subxaanahu wa ta'ala uga difaacday ciidankaas Kacbada soo dhaweyn iyo sharfid la sharfayo suubanaha nabadgelyo naxariis dushiisa ahaatee iyo in la cadeynayo beydkan ay rabaan inay weeraraan inuu yahay beyd muqaddis ah Allah subxaanahu wa ta'ala uu iska leeyahay u dhowraayana. Marka tafsiirka suuradda insha Allah ta'ala waan bilaabaynaa aan ka faa'iideysano. Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay بسم الله مقع إببان كبلاويا الرحماني نحريس جود نحريستا مسلم إيا قلبا نحريستا الرحيمي نحريس قار أهنان نحريستا ومؤمنين تقول نحريستا مالك إن نحريستا أبهانيهين. ألم ترى ميانات أوجين كيف سيدي فعل أكسمي ربك ربي قال بأصحاب كوحدي الفيل إمروديكو صاحب كهد kooxdii maradigu saaxiibka ahayd miyaanad ogeen rabbigaad wuxuu ku sameeyey. alam yajcal miyuusan ka yeelin kaydahum dhagartoodii iyo shirqoolkoodii oo ahaa inay Kacbada burburiyaan fii tadliilin mid qasaartay mid baadiyowday somuunan ka yeelin oo lagu guulaysanin. wa arsala miyuusan u dirin calayhim dushooda miyuusan ku dirin طيرا شمبرا أبابيلا رحن أو كوح شمبرا أصلا وحي كمد أهايين عيدنك الله سبحانه وتعالى. شمبر كستوحي ودي صدح رقح بي ودي رقح كستنو حكو قرنا ننكي لقدر لها بمقعيس أكو قرنا قار وحي نقدين عرره قار ماشي سكود انتو بي نقدين ترميهم الله حلاه كجميسة بحجارة رجحان أو من سجيل ضوبة للدبيئة أما ضوبة لكليئة فجعلهم ميوسا كيل كعصف سد بل أوكله مأكول لداخل. الله سبحانه وتعالى آيات ذنب وحينوه شيء إن عيدن كاسحد قدبي اسكو دين إني حج كويران إن الله سبحانه وتعالى وكأرجتي ونا ترتري
ومارت بيت كيسن والله سبحانه وتعالى كدوري بسم الله مقع عببان كبلا يا الرحمن نحريس جود نحريسته مسلم يقال بو نحريسته الرحيم نحريس قال أهند نحريسته ألم ترى ميانات أوجين كيف سيدي فعل وكسميي ربك ربي قال بأصحاب كحد الفيل مرودي وصاحب كيد ألم يجعل ميوسن يلين كيدهم لقرتو ذي يشرقون كود لد مع سنين كعبضة في تضليل مد لقو قساري مد بادي ودي سمون الله سبحانه وتعالى كيلين وأرسل ميوسن كدرين عليهم دشودة طيرا شمبرو أبابيل رحن ترميهم توريسا بحجارة لقحان أو من سجيل رابلو كلي كسميسا فجعلهم سموسا كيالين كعصف بل مأكول لداخي الله سبحانه وتعالى سدس بو أقلي عيدا كاسكسو الدولي كعبضة أسوأ الله سبحانه وتعالى عدينا ماشاس إنay tahay meel barakaysan oo Allah subhanahu wa ta'ala ka qabanay cid kasta oo ku soo gardarood marka suurada waxaan ka faa'iidi karnaa in Allah subhanahu wa ta'ala oo sharfay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo na soo dhaweeyay qisadana waxay dhacday nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu sanadkii uu dhalanayay bay dhacday waxaan loogu magac daray caamul fiil sanadkii maroodiga marka waxaan filaa insha Allah ta'ala suurada tafsiirkeeda in laga faa'iideystay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.